ardaydaasoo sida ay dadku u haystaan barnaamijkaasi aanu ahayn laakiin barnaamijkaasi markiisa horeba uu ahaa carro ka mashquuli oo la doonayay marka horeba dhallinyartaas in loogu talagalay in barnaamijka loo sameeyeyba sidii aanay dhallinyarta iyo carro loo kala mashquulin lahaa ee aanu ahayn marka horeba wax loogu talagalay in ardayda iyo dadka dhallinyarta ee bilaa camalka looga faa'iideeyo horta qodobka maxaan ku idhaahdaa hawshaa shaqo qaran iyo barnaamijkaas kaasuu ahaa shaqo qaranna may ahayna waxay ahayd carro ka mashquuli waxaana taan iminkana ay maraysaaba in iyadoo imtixaan la galay oo dad imtixaan ugu jiraan in maxaan ku idhaahdaa qaybo kale oo garabac area inta la yidhi imtixaan baa ay soo gelayaan dabeetna hadhowta la doonayay kii imtixaanka saxda ah ku jiray ee u soo jabay ee maxaan ku idhahdaa mandheera iyo tababarka u soo qaatay la yidhaahdo halkaagii waxaa gelaya maxaan ku idhahdaa ninka ka dulgeliska ah wariyaashiis yidhi markaa hawshaas bal dadka iyo shicibka u soo bandhiga waayo saxaafaddu waxay leedahay xorriyatul qowl bay leedahay waxay dadka u soo tabisaa kolba wixii jira dowladda iminka joogtay xukuumadda iminka joogtaana waxaad moodaa in xaalkeedu uu yahay oo hawsheeduba ay tahay car juuqdhe iyo car hadal oo suxufigii la xidhayo oo kii caqligiisa iyo maxaan ku idhaahdaa fikirkiisa ku hadla la xidhayo oo dabeetana arrinkeedu way noqday xabsi iyo xadhig waxaasina waxayna wadaya maaha waana caadooyinka lagu yaqaano xukuumadda militariga ee sii degdegaya ama maxaan ku idhaahdaa qarka u saaran inay saaxadda ka sii baxaan oo waynu ogey iminka military kaste ama dowlado kastoo military ama xukuumado kastoo military maanta halka ay ku dambeeyeen waynu wada ognahay cidna kama dedna waxaan u malaynayaa tan maanta waddankeena ka talisaana raadadkii horun bay haysaa haddaad aragto xukuumad iyo saxufigo isaystiyo ra'iisul caamka oo la caburinayo iyo afkaarta oo la caburinayo waxay kow ka tahay arrimaha uu ku dhaqmo waxa la yiraahdo dictatorship marka tan maanta dhacaysa waa dictatorship taa marka halka kaga baxo waxaan u gudbayaa iyadana qodob kale oo maxaan ku idhaahdaa hadal madaxweynuhu maalin yiri hadalka madaxweynuhu wuxuu ahaa oo khudbadiisii ka mid ahayd beelahu way kala baqayaan waxa la yiri bari baa nin baa jiray baa la yiri ninkaasi ay nin oday baa meel soo maray dabeet wuxuu arkay laba ciyaal oo isdilayo isla rafanayo itaalkoodii isla leban lagdoonaya iyo nin weyn oo ag taagan oo isku daawanaya dabeet markaas uu ku yiraahdo maxaa ciyaalka u kala qaban weeyday wuxuu yiri haddaad ogtay isku diristoodii tii iga gaadhay ima tiraahdo maxaad u kala qaban weeyday waxa marxaati ka ah hadalkii madaxweynuhu yiri wuxuu yiri way kala baqanayaan buu yiri baylo show waa nin wiligiiba isku soo dirayay oo maxaan ku idhaahdaa isugu taag la'aan wadan la isugu taag la'aan waarisdila laakiin waxa ka ayaan daran oo ka daran kuwa maanta hadalka ninka maqlay haddana saacada aynu joogno xabadday soo haysta ay kuwaas ayaguna ka ayaan daran intaas ku soo gabagabeynaya aad dood mahadsantiin